mar haddaan geerida horteed geesiga la aqoonsan goblan weeye Soomaaliye garashadaadiiye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa jimcihii aynu soo dhaafnay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Ilaahay ha u naxariistee Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ahaa afhayeenkii golaha shacabka Soomaaliyeed Oqaashi waxgaradkii iyo madaxdii ka hadashay tacsida Professorka hadaladii laga diiwaan geliyay waxaa ka mid ahaa ilay iska damay ummadda Soomaaliyeed iyo darbi weyn oo culeyskiisa lahayn karin oo ku soo dumay guud ahaan jamhuuriyadda Professor Jawaari waxa uu 7 bishii 12 1945 ku dhashay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu barbaarkiisii barashadiisa Quraanka Kariimka ahayd ku qaatay magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Baay intaa kadib waxa uu u wareegay magaalada Muqdisho halkaas oo uu ka galay waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare ilaa iyo heer jaamacadeed waxa uu culuumta sharciga ka bartay jaamacadii ummadda Soomaaliyeed waxa uu Professorka shaqada qaranka bilaabay isagoo aad u da'yar sanadihii 1973 ilaa 1979 waxa uu agaasimo ku xigeen iyo agaasimo guud ka noqday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada intii u dhaxaysay sanadii 1979 ilaa 1985 waxa uu noqday xoghayaha joogtada wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada markii dambe waxa uu Professor Jawaari Ilaahay ha u naxariistee noqday wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadihii kala duwanaa ee dawladdii kacaanka sidoo kale waxa uu Professorka ka mid ahaa baarlamaankii dawladdii horkacayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre burburkii kadib waxa uu odaygu ku noolaa dalka Norway halkaas oo uu ka waday howlihii waxbarashada iyo adeegga dadweynaha markii ay bilowdeen shirarkii dib u heshiisiinta Soomaalida waxa uu ka mid ahaa dadkii waqtiga u horay dadaaladii dawlad dhiska Soomaaliya waxa uu gudoomiye u noqday guddigii madax banaana ee diyaariyay dastuurkan hadda dalka uu haysto waxa aad loogu xasuustaa inay bixinadiisa luqadeed ee dastuurka iyo sidoo kale wuxuu ahaa ninkii hindisay in coverka ama bogga sare ee dastuurka laga dhigo calanka Soomaaliya sanadii 2012 ayuu Professor Jawaari gudoomiye u noqday baarlamaankii uu horeeyay lagu doortay gudaha dalka tan iyo dib u eegleeladii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya waxa uu ka qabtay shaqo aad u adag taasoo keentay inuu ku hanto qulubta shacabweynaha Soomaaliyeed isla markaana dhalisay in dib loogu doorto isla xilkaasi 2017 walowna dhamaysan oo mowjado siyaasadeed ku kaceen haddana wuxuu ahaa nin u tanaasulay qaranka waxaa loo xasuustaa hadaladii maalintaa ku hadaaqay waxa uu dhiig iyo dheecaan u shubay dib u dhiska dalka Jawaari waxa uu ahaa luqadyahan ku hadla af Soomaaliga Talyaaniga Carabiga Ingiriisiga iyo Norwegianka waxa uu 28 bishan ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana lagu aasay maalintii xigtay ee Sabtiga Jawaari waxa uu ku dhintay isagoo ku jira da'da 79 jirka ah waxa uu ifka kaga tagay Ilaahay u naxariistee Professorka 9 caruur 5 gabdhood iyo 4 wiil inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun